السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaada walaalayaal kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. intii aanu sii gudagelin muuqaalkeena marka hore aynu isxasuusino saliga xabiibkeena Maxamed. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سو دواad walaalayaal alxamdulillaah allah yow adaa ku mahadsan caafimaadka aad nasiisay iyo nimcooyinka aad nasiisay kuwa aan la tirin karin la tirana koobi karin alxamdulillaahi daa'iman wa abada. walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso cajiib ah taasoo ku saabsan faa'iidada ay leedahay saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan markii loo aqrinayo siirada ama qaabka ibraahimiyada oo ah qaabkan: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيقداس أو سيقدا أما قابك ugu wanaagsan ee loo akhriyo saliga xabiibkeena Maxamed qiso cajiib ah oo laga arkay. gabadhani waxay ahayd gabar dhalinyaro ah, waxay la nooleed oo soo koriyay hooyadeed iyo aabaheed. waxay ka soo bixiyeen waxbarashadii dugsiga hoose, dugsiga dhexe ilaa ugu dambeyntii dugsigii sare ee ka qalin jabisay. waalidkeed aad ayay ugu farxeen, mar walbo ay qalin jabisana xaflada ayay u sameyn jireen inta karaankooda ah. inkastoo gabadhan ay ka dhalatay reer iska duruufaysan, haddana intii tabartooda ah gabadhooda farxadeeda way u huri jireen. ugu dambeyn gabadhan waxay gaartay jaamacad, waxaana u soo gabagaboobay markii dambe 4 sano ee jaamacadda ahaa. waalidkeedna xaflad sidoo kale ayay u qabteen. gabadhan waxay ahayd gabar iska faraxsan, inkastoo reerkeeda dhaqaale saas ay haysanin, haddana intooda ayay ku qanacsanaayeen oo gabadhooda ay ku garab istaageen. waxaa dhacday gabadhan markii ay jaamacadda dhammaysay in ay shaqo raadisay. shaqo raadintii ayaa ku daba dheeraatay oo muddo ku qaadatay 2 sano ayaa kasoo wareegtay xilligii ay jaamacadda dhammaysay. intaasna wax shaqo ama helin. gabadhan iyadoo iska murugsan oo iska kurbaysan ayaa waxaa dhacday in ay xanuunsatay hooyadeed markii ay xanuunsatay dhakhaatiir dalka gudihiisa ayaa la geeyey, laakiin waxaa loo sheegay in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin oo ay qasab tahay in dalka dibadiisa loo qaado. reerkan waa reer iska danyar, san hore usoo sheegaba, oo ma awoodaan maamada in ay dalka dibadiisa u qaadaan iyo qarashaadka ku bixi lahaa. waxaas tabartooda ma aha. hooyadeedna waa ay xanuunsan tahay. gabadhan waa lagu soo tiiri tacabeelay, waxbaa lasoo baray, jaamacadii bay kasoo baxday, gurigii ayay fadhisaa. arrintaas waxay dareentay culays aad iyo aad u faraweyn inay ku tahay. meelaha ayay gashay, wax ayay suuraysay, qaraabada kulli waa la dhexgalay, laakiin lacag reerkii ku filnaan karta weli lama soo helin. gabadhan iyadoo aad iyo aad u murugaysan, maalin maalmaha ka mid ah oo YouTube iska fiirsanaysa ayaa waxay aragtay gabar muuqaal ay soo gelisay. muuqaalkaasoo run ahaantii gabadhan nolosheeda bedelay. adigana waxaa laga yaabaa maanta muuqaalkan haddaad dad la wadaagto in sidaas oo kale uu noloshooda u bedelo. gabadhan muuqaalkii ay aragtay waxa uu ku saabsanaa faa'iidada ay leedahay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo dad deyman lagu lahaa oo Alle subxaanahu wa tacaala ka guday. muuqaalkaas ayay daawatay, waa ay dhammaystiratay. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa la doonay in ay aragto muuqaalkaas. markii ay muuqaalkaas aragtay, iyadoo bini aadan intay wax weydiisatay wixii ay u baahneyd weli helin, oo shaqo aan helin, oo nolosha ay aad uga adag tahay, hooyadeed macaan ay ka xanuunsan tahay, ayuu Alle subxaanahu wa tacaala muuqaalkan haleeshiyey oo uu tusiyey. gabadha markii ay muuqaalka aragtay ay dhageysatay, albaab ayaa u furmay
waxay go'aansatay in ay bilowdo oo ay akhriso saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan qaabka siiqatul ibraahimiyah oo ah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سيقداس أما قابكاس إن أيو أخرسون gabadhan go-aan ayay qaadatay oo ah in ay bilowdo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama ay bini aadam weydiisatay oo wixii ay rabtay ay ka helin in ay Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa aado waxay akhrin jirtay maalin kasto 3,000 oo mar oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabkii aan hadda idin soo sheegayna waa ay u akhrin jirtay subhanallah hal bil markii ay waday saliga nabiga maalintii 3,000 ay akhrin jirtay waxaa dhacday in ay heshay shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo dhaqaale fiican lagu bixinayo run ahaantii shaqooyinka nasiibka ah oo dadka levelkeeda ay helin ayuu Allah subhanahu wa ta'ala u sahlay waxaana u soo sheegay wiil ay qaraaban yihiin oo ka warhay xaaladeeda in ay hooyada xanuunsan tahay gabadha dhowr sano ay shaqo la'aan tahay wiilkii ayaa u soo sheegay jaaniskaas banaan gabadhii waa ay faraxday marna waa ay murugtay maadaama meesha waxay kala kulmi doonto aysan ogeyn haddana shaqada waa ay ku faraxday gabadhii way isdiyaarisay way baxday meesha shaqada ayay tagtay CV ayay geysatay waxaa loo sheegay in imtixaan la iska qaadi doono oo meesha dhowr qof ay ku tartamayaan imtixaankaasna ay usoo diyaargarowday gabadhii waayaha ayay tiri way soo baxday saliga nabiga afkeeda kamay qaadeen oo 3,000 wali waa ay wadataa waxaa dhacday in la gaaray maalinkii imtixaanka ayaa la galay xitaa meesha imtixaanka lagu galayay markay fadhisay way akhrineysay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintii imtixaanka la gaaray maalinka imtixaanka markii la gaaray ayaa waxaa dhacday in Allah subhanahu wa ta'ala gabadhii u fududeeyay imtixaanka oo imtixaankii gashay natiijadana waxaa loo sheegay 2 maalin kadib in la isku yeeri doono oo guuleystaha ama qofka booskan ku soo baxay loo wici doono 2 maalin run ahaantii aad ay u walwalsaneyd sababtoo ah waxay ahayd qof u baahan ka waran adiga markii hooyada ka xanuunsan tahay oo had adiga waxba haynin oo tahay qof wax bartay oo hooyada ay kugu soo tiiri tacabeeshay maantana iyadoo xanuunsan aad waxba u tiri karin waa arin xanuun badan gabadhan yacni daruuri ayay u ahayd shaqada oo aad ayay muhiim ugu ahayd 2daas maalin ay jawaabta ku soo bixisay waxay dareentay murug aad u fara badan haddana Allah subhanahu wa ta'ala ayay ku kalsooneed oo ay tala saaranaysay saliga nabigana afkeeda kama qaadeenin waxaa dhacday 2 maalin markii la gaaray in la soo wacay oo loo sheegay in ay iyada tahay qofka ku guuleystay ee ku soo baxay booskaas subhanallah ma sha Allah waa ay faraxday sujuud shukr ayay la dhacday qofka ugu horeeyay ee farxadda la qaybsatana waxay ahayd waalidkeed gabadhi waa ay soo baxday meesha shaqada ay imaatay sidaas ayay ku shaqo bilowday shaqada waxay ahayd shaqo mushaar aad u fiican lagu qaadanayo mushaarkeeda ayay aruurisay ugu dambeyn gabadhii hooyadeed waa ay qaaday wadankii loo baahnaa ayay geysay waa ayna soo daaweysay Allah subhanahu wa ta'ala waa uu ku daaweeyay waxay kaloo sameysay gabadhan marka la hooyadeed intee waday ayay xajka geysay waa ay soo cumraysiisay waxay kaloo u qabatay hooyadeed gabadhan guri ayay u dhistay Allah subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo manihiisa iyo karamkiisa iyo faa'iidada saliga nabiga ay intaasba ku dhacday iyo Allah subhanahu wa ta'ala tala saarashadii ay tala saaratay sidaas ay gabadhan nolosha reerkooda idil ay ku bedeshay Allah subhanahu wa ta'ala ayaana u fududeeyay وأمانتنتي ولا له قروح بدن قصدان ولا لك الأشهر جري لجيها بقف إن نلوشي سبد الشو أو ما أنت وحكي فايدو هدي أديك هورين ولجوكت واد ما تنتهاي هدي أنا نقول عصبت هايني كصابير أو كصاب من نقا أصحابتنا سبسكر أبصار وجنبليل كانوا فروق هدي هورين ولجوكتيني واد ما تنتهاي مقال كان هكي إلو بين إن لايك صارتو والسلام عليكم.